بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن وعل صاحبة قيمها قدرنت إيقاياها لغا مدلو ميل البعد جوكتالي مرحلة البعد لغو داوليسان وحال هودي دكالي لهي رمضان مبارك. صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري. صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري. daawadayaal maanta waa maalintii 23aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana muuqaalkeena uu daaran yahay akhlaaqda hadalka xilliga marka Ramadaanku waxaan daawadayaal muuqaalkeena qodobada aan ku dul istaagi doono kamida waa maxay macnaha akhlaaqda hadalka Ramadaanka waxaan eegi doonaa daawadayaal saddex meelood ama saddex waxyaabood oo carabka ay tahay in marka laga ilaaliyo xigmada hadii lagu dadaansado ama waxyaabihii marka aad sameyn lahayd ayaan eegi doonaa shaxda hadalka sunta ah iyo sidoo kale hadalka nuurka ah ayaan daawadayaal muuqaalkeena ku dul istaagi doonaa waxaan kaloo eegi doonaa dardaaran kooban oo ku saabsan ahmiyada marka akhlaaqda hadalka ayaan daawadayaal isla eegi doonaa iyo sidoo kale xigmadaha la xiriira ilaalinta wiilka ajirka iyo sida marka ay tahay in marka loo dhaqmo inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan qodobadaasi ayaan daawadayaal muuqaalkeena ku gurfeen doonaa daqiiqadaha ina soo aadan hadduu Allah uu dalay raali ka noqdo ee soo dhawaada saaxiibayaal socdaal training company waxaad ka heli kartaa qalabka elektarooniga noocyadiisa kala duwan sida qasaaladaha fariijyada noocyadooda kala duwan dhalooyinka TV-yada guryaha mukaafiyada kuukarada noocyadooda kala duwan iyo sidoo kale haamaha gaaska yar iyo weyn iyo dhammaanba noocyada qalabka elektarooniga ee loo isticmaalo guryaha dhammaan agabyadan kala duwan waxaad ka heli kartaa xarumahooda kala duwan sida xarunta weyn ee ku taala moolka Macalin Biimaalow oo ku yaalo kasoo horjeedka masaajidka Macalin Biimaalow iyo xarumahooda kala duwan ee suuqa Bakaaraha wixii faahfaahin taadeeri ah kala xiriir telefoon lambarada shaashadeeda kaga muuqda markale kula wacan saaxiibada qiimaha badalow maanta waa maalintii 23aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana muuqaalkeena uu daaran yahay akhlaaqda hadalka xilliga soonka haddii aan ku horeeyno waa maxay macnaha akhlaaqda hadalka ee Ramadaanku waa in qofku uu xakameeyaa carabkiisa uuna markaa miisaamaa erey kasta oo afkiisa ka soo baxaya maadaama aad u sooman tahay alla dartii carabkaaga oo aad dambiga markaa ka ilaaliso waxay qayb ka tahay ixtiraamka marka aad u hayso cibaadada marka aad ku guda jirto quraankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xiriirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko haddaba haddii aynu eegno saddex meelood oo ay tahay in carabka laga ilaaliyo xanta inaad qof walaalka ah wax ka sheegto isaga oo maqan beenta in marka aad sheegto wax aan jirin gaar ahaan adiga oo sooman aflagaado iyo sidoo kale mural in qof kale aad ciido ama hadallo markaa kulul aad isdhaafsataan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxay ka dhigan tahay in marka saddexdan waxyaaboodba sida xalta beelta iyo sidoo kale aflagaadada ama muranka inay tahay marka inaad ka fogaato inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan xigmadaha markaa haddii lagu daandaansado haddii aynu eegno nabigeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu la baray xeer markaa dahabi ah oo akhlaaqda hadalka ah haddii markaa qofku uu ku caayo ama uu ku daandaansado adiga oo sooman waa inaad markaa tiraahdaa anigu waan soomanahay ama anigu waxaan ahay qof sooman maxay markaa culimadu
ku sharxeen xigmadan haddii aynu eegno waxaa kow ka ah xusuusinta laftaada in markaa laftaada aad xusuusiso inaad ku jirto cibaado weyn oo u baahan markaa samir. qodobka labaade dabdamis in markaa qofka kale aad u sheegto inaad diyaar u ahayn in markaa dembigu aad la qaybsato, taasi oo inta badan keenta in qofka kale uu xishoodo ama isaguna uu aamuso. hagaage shaxda markaa hadalka sulta ah iyo hadalka luurka ah haddii aynu eegno si markaa aad u kala saarto waxaa laga raba carabkaaga ramadaanka. eeg markaa shaxdan hadalka sulta ah oo la rabo markaa inaad ka fogaato waa xanta iyo sidoo kale isku dirka waxay markaa daciifiyaan ajirka soonku. si la mida markaa ama si taa ka duwan digriga iyo sidoo kale tasbiixda iyo weyleylta alle waxay markaa ayaguna ay kor u qaadaan ajirka soonka. beenta iyo sidoo kale marag furta beenta ah waxay buriyaan luurka soonku. si taa ka duwan qur-aanka iyo sidoo kale akhriska ama carabka oo markaa lagu qurxiyo hadalka alle waxay markaa ay kor u qaadaan luurka soonku. oo waxay tahay in marka aad ku dadaasho digriga iyo sidoo kale tasbiixda iyo weyleylta alle subxaanahu watacaala, sidoo kale aad ku dadaasho qur-aanka akhriskiisa iyo in carabkaaga marka aad ku hayso oo aad carabkaaga ku qurxiso hadalka alle. si taa ka duwan ka fogow sulta oo markaa ka fogow xalta iyo iskudirka oo waxay daciifiyaan ajirka soonka. sidoo kalena waa inaad ka fogaataa beylta iyo sidoo kale marag furka beelta ah oo waxay buriyaan luurka ama nuxurka soonku. sheekooyinka markaa aan aakhirada waxba ka dhisayn ayaa iyaguna la mid a waxyaabaha la rabo in aad ka fogaato. qaylada iyo buuqa ama dadka oo markaa lagu dhibo codka sare ayaa ka mid a waxyaabaha la rabo in aad ka fogaato. guud ahaan daawadayaal muuqaalkeenii koobnaa oo aan kaga hadleynay akhlaaqda hadalka xilliga soonka intaas ayaan ku soo koobaynaa maanta oo ahayd markaa maalintii 23aad ee bisha barakeysan ee ramadaan. tani inta muuqaal ka lamid aynu ku kulmi doonno waxaan daawadayaal idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. ramadaan mubaarak. salaamad yeeshee sooma ramadaanka waa bisha sugayne samahariira naarti naga salaamad yeeshee sooma ramadaanka